kooxda PSG iyo Kylian Mbappe ayaa isku dhaxsan maalmahan. kooxda PSG waxay diiday inay ku fasaxdo laacibkan Kylian Mbappe sanadka dambe free maadaama saas ay tahay kooxda waxay dhigtay suuqa hadda ayay dhigtay suuqa waxayna rabtaa inay ku hesho lacag waxayna ka reebtay kooxda trainingaashii hadda ay sameynayaan isoo kala ciyaaraha diyaar garowga ay sameynayaan way ka reebeen laacibkan hadda kooxaha badankood ma qaadan karaan laakiinse waxaa la sheegaya in Real Madrid wali ay rabto labadii ogna sidii Real Madrid u rabtay laacibkan laakiin suu ka diiday oo contract cusub ay u saxiixay PSG kooxda Real Madrid sida ognahay waxa ka tagay laacibka Benzema ka tagay bedelkiisa marka Mbappe ma noqon karaa dad badan is weydiinayaan ilaa hadda lama oga xanta suuqa laakiinse PSG waxay rabtaa laacibka inay ku hesho lacag hadda intuu contractigiisa dhamaan ilaa 2024 kooxo badan oo Premier League ayaa si weyn u raadinaya Kylian Mbappe laakiinse waxaa la iska rabaa mushaarkiisa sidoo kale inay bixiyaan lacagta ay ka rabto kooxda PSG inay ku gado laacibkan